jaamacadda Alfa University faraceeda magaalada Burco ayaa habeennimadii xalay u qabatay ardayda Nutrition-ka ee semester 8-ka tababar kor loogu qaadayo xirfadooda Nutrition-ka. Munaasabadii ay ardaydu ku soo bandhigaysay aqoontii la baray ayaa waxa goobjoog ka ah dhanka kulliyadda Nutrition-ka ee jaamacadda Alfa University Burco. kamida jaamacadaha ugu aqoonta iyo tayada wanaagsan ee gobolka Towdheer waa kuwan ardayda Nutrition-ka ee jaamacadda Alfa University oo soo bandhigaya cilmiyadii la baray si ay bulshadooda ugu shaqeeyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waa jaamacadda Alfa qaybta laabka kulliyadda caafimaadka. halkan caawa nago galaaskii maxaa lahayd trade-yearka ee Nutrition-ka ee Department of Health Science-ka waxaan ku soo bandhigi doonaa waxyaabo kala duwan oo ay kamid yihiin in aan soo bandhigno dhammaan practicaladii ay qabanayeen ardayda Nutrition-ku ama arday kasto looga baahan yahay inuu barto cilmiga Nutrition-ka intaanan u gudbin waxyaabahan idin soo bandhigi doono waxaan jecelahay inaan ku soo dhawiyo dhinka kulliyadda maxaa lahaayay Mustafa ku soo dhawow. waxa iyaguna ka hadlay dhanka kulliyadda caafimaadka Dr. Mustafa iyo macallin Xaliima oo ah madaxa practicalka jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco. waxaan noo farxada maanta inaynu kala qayb galo ardayda kulliyadda Nutrition-ka semester 8 oo soo bandhigaya barnaamij caafimaad oo kulliyadooda ku saabsan oo runtii barnaamijyo taxana ay kamid ahaayeen ardaydii hore iyaguna ay laabkana soo bandhigeen barnaamijkaas oo kale waxa maanta la marayaa kulliyadda Nutrition-ka jaamacadda Alfa oo iyaguna soo bandhigaya barnaamij ku saabsan nutrition ku saabsan runtii waxa loo baahan yahay weeye waana jaamacaddu mar walba waxay garab taagan tahay fiilasha kala duwan inay barnaamijyada soo bandhigtaan ardayda Nutrition runtii waa barnaamij aad u qaaliya wadaan caawa oo kulliyadda Nutrition waa kulliyad qaaliya runtii oo waxaan ku noolahay runtii hadana nafaqadayna nafaqaba inaan aqoon badan loo lahayn ee nolosheenuba caafimaadkeena ma saxsanaanay barnaamijka Department of Nutrition-ka waxa dhigta arday runtii aad u firfircoon oo jaamacadda meel wacan ka jira barnaamij fiican oo soo bandhigayaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan la garab taaganahay wax kasto ay u baahan yihiin inaan ka caawino caawina runtii barnaamijkaas oo barnaamij qiimo leh waa laga faa'iideysan doonaa ardayda gobolka kale ee ku nool waxaan leenahay kulliyadda Nutrition-ka ha lagu soo dhawaado jaamacadda Alfa aad bay uga dhisan yihiin haday macallimiintii noqoto haday practicalkii noqoto haday qalabkii kale agabkii kale lagu shaqeynayay noqoto oo kulliyad aad u dhisan arday isku duuban weeye waxaan leenahay fursadda gobolka ha looga faa'iideeyo jaamacadda Alfa waxa loo Nutrition doonaya ama degree ama diploma ilaa master oo kulliyadda oo ka bixinaa waxaan leenahay ku soo dhawaada ardayda kala xiisaynaysa kulliyadaas. waxaan kulay sharax ka bixin doonaa cuntada halkan taala cuntadan oo ah isugu jirta fruits and fibers cuntooyinka loo yaqaano fruitsku waa cuntooyinka midhaha sida tufaaxa cinabka sabiibta waxa kale aan ku dari doonaa cuntooyinka loo yaqaano fiberska cuntooyinka maxay toolay ay inta badan dalkeena wadaniga laakiin ay bulshadu aanay ku baraarujisnayn faa'iidada ay leeyihiin anigoo ku bilaabi doona cuntooyinkan fiberska ee loo yaqaan cuntooyinka baalka leh halka waxa inoo yaala 4 nooc oo inta badan dalkeena ku qani yahay ama laga helo ay ugu horeyso cuntadan oo ah ka kooban halkan cuntada loo yaqaan galeyda iyo sareenka haddii aynu yara dul istaagno labadaas faa'iidooyinka ay u leeyihiin caafimaadkeena ama nolosheena galeyda iyo sareenku labaduba oo cuntooyinka loo yaqaano cerealska ama filileyda kuwaas oo aad muhiim uga ah nolosheena inta badan ka hortagaya xanuunada chronic ama jiitama ee qofka noloshiisa oo dhan la socda waxyaabaha kale ay noo tarayaan waxa kamid ah in qofka ku sameeyaan weight loss inay u sameeyaan miisaankiisa inay dhimaan in qofka ka hortagaan qayb kamid ah kansariska sida colon cancerka oo kamid ah. السلام عليكم magacaygu waa sagal soo dhawow waxaan ahay talabixii warka xagga nafaqada soo dhaweynaya soo dhawow eedamada maxay waan dhawey insha Allah iga toddoba shay maas way shubmay aloosh iskaag weeyday xumad buulay naqas ku haya hal wax ka digayaan haba yartan jira ilmo imse bilow bu jira inta sagaal bilow bu jira الناس كم سيسن ما ودي ذي صح إما كوحبة ما سيسن وحكدك يا وح قصة صار ما تشرو وايا هاي إن هرتي عنو ما أنت تلا أيام كسينا يا
wax aan sameynaya ama baydhitaan ama wax dhakhtar kulley referral waa lagu siinaya laakiin waxaan ku siinayaa tala ayaan ku siinayaa taladaasoo ku saabsan mid adiga iyo mid ilmahaaba adigu haddii aad tahay hooyo imanka maxay toolay ilmo 9 bilood haysata waxa muhiim horta in ilmahan uu helo uu xaq u leeyahay inuu helo 6 bilood ee naasnuujinta ee khaaska ahayd inuu helo taasoo ay faa'iidooyinkiisa adiga iyo ilmahaba ay u leedahay ugu horeyn haddii aan adiga kugu horeeyo faa'iidada ay ku leedahay waxa weeyaan inta ugu weyn ee ay ku leedahay waxa weyn adigu ka soo kabato oo nafaqadaadi kor u soo kacdo talabaad ee ay leedahay waxa weeyaan ilmi caruurti kala koriso oo naaskan uu waa kala koriye marka aga la eegayo inagu waxaan isticmaalaa ama sidoo kalena diinteena islaamka ayna leedahay in ilmuhu waxa ku leeyahay 2 sano la siiyo naaska waxa kale muhiim ah aan ku sheegi rabaa in ilmahaas aad naaska siinayso 6 bilood uu xaq ugu leeyahay gaara markaad siinaysana biyo haddaad ugu darto waa caadi laakiin naaskan qudhiisa ayaa biyo leh caanaha naaska ayaa biyo leh caanaha naasku kaliya ma laha biyo laakiin waxay leeyihiin vitamins bay leeyihiin mineral protein bay leeyihiin dhammaan wax ka maqan ma jiro ugu horeyna ilmahan marka u horeysa ilaahay wuxuu ku siiya caano la yiraahdo dambarkaasi waxyaabo badan buu ku tarayaa adiga wuxuu ku tarayaa healing baad qaadanaysaa wad bogsanaysaa ilmahan wuxuu tarayaa wuxuu ka helayaa hab difaaciisi ayuu xoojinayaa wax kale uu sameeynaya wad ku bogsanaysaa wad ku bogsanaysaa umul soomati wad ku bogsanaysaa markaad dhasho ad caanaha siisa dambarka ad wad ku bogsanaysaa ha markaas waxyaabo kale oo ka hortaga waxa kamid ah oo ilmahan uu leeyahay ilmaha maskaxdiisa kor waxa la garaadkiisa inuu ilmuhu garaadkiisu fiicnaado inuu ilmihii xanuunadii difaac ka yeesho imaka hadda naaska wadi lahayd wax badan baa ismay arkeen xanuuna laakiin waxa jira oo kale oo ah inaan kala taliyo ilmahan waxa jirta 2 midba inaanad garanayn habkii loo siinayay iyo inaad khalado sidii loo dhigayay oo kale iyo haddii aad isugu soo dhadhaweyn weydo oo kale aad caaniyo u dhaxaysiiso ilmihii inuu kaba tagaba marka kala mashquulka laakiin mudnaanta waxa la ilmahan soo koraya inaad siiso waayo wax kastiba ilmahan maaha dhammaan hab difaaci haddii tahay mid tii dheefshiidka hadday tahay tii difaaca haddii tahay mid kasta ilmahani may u adkaan markaas waxa muhiimadda waxa la mar kasta ilmaha adigana mas'uuliyadaadu waxa weeyaan inaad siiso 6 bilood oo dhamaystirto talabaad aan iminka kala talinaya waxa weeyaan haddii maanta aadan siinayn inaad u bilowdo cuntooyinkii lagu kabay cuntooyinkaad siinayso cuntooyinkan markaynu leenahay hal ababiyo ilmaha waxyaabo badan bay u taraan ay ka mid tahay in ilmahani camankeena waxa ku jira murqahaas waxay noqdaan ilmaha markii calaalin waayo inay shaqayn waayaan hadhowto marka taasoo kale faa'iidadaas ku jirta in ilmihii markii naaskii yaraado caanis 6 bilood hadii hooyadu dhaafto uu yaraanayo markaas waxyaabo baahidiisa baa isna badanaysa caanihi naaskuna way yaraanayaan marka taasoo kale in lagu kabo imaka hadii aad calaamadaha ku aragtay suman ku aragtay waxa ku aragtay waa inaad maxay toolay siisaa waa inaad maxay toolay dhakhtar geysaa ad la xiriirta ama goob caafimaadkii kuugu dhowba waxa kale aan kuugu dari lahaa cuntooyinka caruur kale aad haysataa kulay waxa muhiim ah cuntooyinka aad caruurtaada ugu daraysa inay yihiin cuntooyin borotiin si ay waxa laga helaa waxa jirkii ayaa ilmuhu koraya ilmuhu noqonaya ilmo koray ilmi sameeyay horumar hadday tahay horumarku kaliya maaha inuu socdo laakiin inuu maskaxdiina ka koro ma inuu maskaxdiina ka koro inuu ilmihii koro inuu dhamaystirmo dhammaan heerarkii haddii gurguura tahay hadday fadhi tahay hadday socota marka imaka ilmahani ma fadhiista ilmahani fadhi daa saas banu haya waxa muhiim ah haddaba inaad dhakhtarkii la xidhiidho marka horeysa inaynu ka daweyno xanuunkan kabacdina aad igu soo noqoto wixii talaay dambe markaas saasaan kugula talinay wixii dambe inaad caruurta naasku muhiimadaas oo dhan buu leeyahay hore miyaad u taqaanay intaasoo faa'iido haddaba imaka wixii muhiim ah
talada inaad qaadato ma jecesha inaad talada qaadato alla bisinkeeda khayr allah ku siiyo sax waan qaadanaya haddaba taladaa ku dhaqan wax badan bay kaa bedeli doontaa adiga naftaada iyo ubadkaagaba wad mahadsan magacaa sagaleedo khayr baad qabtaa waan kuu duceeyey wad mahadsan ladina waa kaa qaab wad mahadsan salaamu calaykum السلام عليكم. وعليكم السلام. اسكورنا في عندك. يلمي ويجي 5 سنة يوم. ناس اللي بالقوة عفمتك وجودتك. صح انتو ما كحالي قلنا هاي. انتو حنسنا ياي. إلا عندك 5 عشر. 5 عشر. وان ايجينا marka hadan ku aragna xanuunada qaar dhakhtarka dawladda tagaysa marka hore waxaan ka eegay ilmaha yar xanuunka haya inuu yahay edema marka waa protein energy malnutrition marka ilmaha yar haday saddex baa loo qaybiyaa mar waa 1 plus marna waa 2 plus marna waa 3 plus marka haday 1 plus tahay waa cagaho kaliya haday 2 plus tahayna waa gacmaha iyo lugaha haday 3 plus tahayna waa wajiga iyo gacmaha iyo lugaha operator baa leedahay marka waan eegina bal 2 yahay marka waxaan eegaynaa hadii deemada markan cabirno gacmahan ka qaadana 3 sekin gudahood haday ku soo noqon weydo ilmaha yar waxa weeyaan waa safiir edema marka dhakhtarka loo gudbinaya report baa loo qoraysa medication kan lagu siinaya hooyo warqad baan ku siinaa marka dhakhtarka la tagaysa saas dhakhtarka ku sheegay marka dawooyinka wixii lagu ku fargareyn lahaa hayo street leena inuu saarnaado ilmaha xal doonaya in ay ciribtiisu halka saarnaato bahalka ay ku dhajisanaato saabu dhaji inaanu gacmaha saaran u saayir hada la doonayaa inuu si fiican ugu saasoo kale u noqdo marka qofka cabiraya ama qofka measurement-ka sheegaya halkaas oo kale soo istaagaya wuxuu eegayaa inta uu noqday haydkiisu alxamdulillah لكن خلوا استعمالها الموضوع صعناي wixii ka weyn 2 sanadood haduu ilmo ku socono ku istaagay halka baad istaajinaysaa soo halka سيدي حمدة سوى عن استقراره أنا مسافة يا أولاد كيف تقدر تصنع معي سموها عندي مطعنا سموها ومطعنا كسر أنا ما ولا waxaan u baahnay inaan ka qaadno muwaaga muwaagu wuxuu ka mid yahay qalabka loo adeegsado in lagu soo saaro ilmaha yar heerka nafaqadiisu ay marayso marka muwaag waa kelmado la soo gaagaabiyay mid upper arm circumference ayaa magaciisa caadiga loo yaqaan marka muwaaga sida magaciisa ka cad mid upper armka gacanta xaggeeda sare ayaa laga xidhaa ilmaha yar oo wuxuu soo saarayaa nafaqada reedka marayso marka sida inooga arag sida ka muuqata wuxuu leeyahay saddex midab buu leeyahay saddexda midab waa casaan oo inoo tilmaamaya hadii qofku lambarada ku yaala casaanka oo ku dhaco inuu safiir acute malnutrition yahay iyo qaybta huruudda ah oo inoo tilmaamaysa hadii lambarada qaybta huruudda ku yaala hadii qofku ku dhaco yaani markan ku xidho waxay inoo tilmaamaysaa yana waxa loo yaqaan inay moderate acute malnutrition tahay hadii qaybtan greenka uu qofku lambarada ku yaala ku dhacana qaybta inta badan waxa loo adeegsadaa inuu qofkaas oofa yahay ama uu normal yahay markan ku xidhayo waxa shardi ah inaan horta marka hore waxa lagu xidhaa gacanta bidixda gacanta bidixda lagu xidhaa gacanta midigta waxa loogu xidhay labada gacmood way kala yar activity badan yihiin marka inta badan gacanta bidixda waayo tan mar walba hawl bay qabataa tan midigtu marka gacanta bidixda inta badan lagu xidhaa marka waxa laga xidhayaa xagga sare gacanta bidixda xaggeeda sare lagu xidhay marka waxa markan ku xidhayo iska dooran maayo meeshan doono calculation baa jira marka calculation-ka waxaan ku calculate garanayaa halka gacanta ugu sareysa ee cuudda ugu sareysa iyo halka suxulka ugu hooseysa labada meelood cabiraya marka waxaan ku cabiraya wax kale ku cabirmaaye hadaan mastarad haystana masaradan u adeegsanaya hadaan mastarad haystana inta badan kan tirooyinka ku qoran ma ku cabiraya marka halkaas u sareysa ee fictan kaga soo qabanaya waxaan ku jujinaya halka suxulka marka halka marka ku xajiyo tirada labada giftin iga soo baxda tirada kala qaybisa halka ku dhacdo ayaan calaamadsanaya marka halka calaamada bartanka yaani kala qaybinaysa laba tiro ayaan calaamad marsan hadan qalin haysan qalin baan marsan hadii aanan haysana gacantan saa ugu qabsan marka waxaan imika bilaabayaa ka jabimayso hooyo
marka sida markan midpoint-kii markan la soo baxo waxaan sameeynaa inaan xirtaankii sameeyo marka xirtaanka qaabkan uu xirayo ilmihi yara gacantiisa waa tan sida maan ugu xidhay marka xagga ma soo gelinaya baalkii waagii markaan soo geliyo aad ugu gijin maayo aad nooga dibcin maayo marka waxaan eegayaa falaadhahaasi la soo dhow falaadhahaasi halkay ku dhacdo falaadhaas yani falaadhaasi numberkay ku dhacdo ayuu ii noqonayaa qofka heer muwaagiis marka inta badan haddii ay ku dhacdo casaan numberkii casaanka ahaa uma jeegisa kaga dhacday 10.5 wixii ka yar inta badan marka waa sam 10.5 wixii ka yar inta badan haddii ku dhacdo numberka falaadha haddii ku dhacdo waxa weeye qofkaasi waa severe acute malnutrition marka saas lagu xiraa aad baad maasantahay hooyo ilmahaaga yar nafaqadiisu waa normal wax nafaqa daraa oo haysa ma jirto aad baad maasantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koobaad ilaahay baa mahad iska leh marka xigtana waxaan u mahadnaqaynaa ardayda qaaliga ah ee cilmigii ay barteen doonay wax ka mid ah inay bulshadooda la wadaagaan oo ay soo bandhigaan waxaan leeyahay halka ka haya horena u socdo baan leeyahay ardaydaas hambalyo kolley qodobka aan ku soo gabagabeynaya anigu hadalkii waa la soo dhameeyo hawshii oo dhane run ahaantii dee cilmi baynu baranaa cilmigaynu barano waynu xambaaranaa laakiin ma samayno cilmigii uma bedelo ficil uma bedelo marka anigu mar koobaad iyo mar labaadba waxaan ardayda ku boorinayaa waliba ardayda fakalkan iska lihi nafaqada iska lihi inay dadka bulshada ay ku booriyaan oo barnaamijyo ka badan kuwan oo kale ay u soo bandhigaan si lifestyle-keena wax isaga bedelo ama qaab nololeedkeena waxaynu ogsoonahay maanta dee jaamacad waliba way bixisaa nutrition baa la soo baxay intaasoo nutrition baa soo qalin jabinaysa haddana dee ma jirto wax ficilahoo meesha imanaya marka waxaan idiin rajaynayaa insha allah idinka inaad noqon doontaan kuwii u horreeyey ee bulshada ku haga inay wax ka bedelaan guryahan qaab nololeedka loo isticmaalayo kolley waxaynu ogsoonahay dareer waliba shub bariis iyo shub daqiiq iyo shub sonkor bay soo dhigtaan waa la soo dhigan karayaa cuntadan quruxda badan leh oo kama qaalisana qaarkood kama qaalisana iyagaaba ka jaban laakiin waxaan la garanayn muhiimadda ay noo leeyihiin siday deynoo sharaxaysay walaasheen mid iyo si yaroo fudud baynan uga saari karnaa bulshada aynu uga saari karnaa dhammaantiin guriyaa ka timaadeen 30 arday baa tihiin 30 guri baa ka timaadeen 30ka guri haddii qof waliba 30 family uu ku daro 30 family lagu daro 30 darisna lagu daro waa 90 qoys maaha 100 qoys haddii sanadkan gudihiisa aad ku tala gashaan sad diet-kooda wax uga bedeli lahaydeen iyo qaab nololeedkooda wax uga bedeli lahaydeen 100kaas intay sii share gareynayaan intay u sii gudbinayaan la sii wadaagayaan marka guryaha laga bilaabo guri walba hala sameeyay bariiska iyo daqiiqdan bal la yara xanibo oo la soo dhigo cuntadan wacan lafahayna dhisaysa maskaxdayna dhisaysa nafaqadeena u wacan xanuuno badan oo maanta ina haysta inooga dawaa bulshadana waxaan leeyahay dee cilmiga la idila wadaagay waa in la tadbiiqiyaa oo loo bedelaa ficil loo bedelaa inaasan kusoo gabagabeynaya mar koobaad iyo mar labaadba waxaan u mahadnaqayaa ardayda hawsha isxilqaantay iyadoon cidina dabada ka wadin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamacadda alfa university faraceeda magaalada burco ayaa kaalmaha hore kaga jirta jaamacadaha ugu waxbarashada fiican gobolka towdheer waxaana jaamacaddu muddooyinka u dambeeyey waday tababaro kor loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadda ardayda jaamacadda sanadkan kasii baxaysa jaamacadda alfa university faraceeda magaalada burco ayaa noqotay jaamacaddii ugu horeysay ee soo saarta arday barata cilmiga nutritionka gobolada bariga Somaliland sanadkii 2019 waxaana soo agaasimay barnaamijkan kuuliyadda nafaqada ee jaamacadda alfa university faraceeda magaalada burco waxaana ku soo bandhigayeen muhiimadda nutritionku leeyahay cabdi qani baafo RTN burco